magacaygu waa Tufaano Cabdulqafaar. Muuqaalkan waxaan ugu talagalnay in uu u noqdo wacyigelin bulshadeena. Waxaa jira khaladaad badan oo bulshada ay sameeyaan marka ay tagaan goobaha caafimaadka. Waxaan muuqaalkan ku muujinay sida saxda ah ee ay tahay in loola dhaqmo loola macaamilo qofka bukaanka marka uu khaladaadkaas ka dhaco. Nabada seexan fiicanahay haye anaa ku socday waa sanda ii sheeg magacaaga dibacaayo haween sida meeqaa xisbadeeda meel afartanay kow meelaha in haye see ugu hayaa adigu sadaqtaradii ma tihid miyaadan garanay waxay ahayd may waa marka hore waa bukaanka iska wadiye waana marka iska wadsiyo xaaladada caafimaadkooda si sida u qanacsan tahay adigu maxaa dhaqtarad ka tahay haddaad xarbeyga ii sheegayo haddana markii aad iska weydiiso xitaa hadii sheegtid baan qiimeynayaa xaaladaada markaa kadib baataanka u baahantaa kuu daraya marka see lagu hayaa waa iska wadi maxaa loo yidhi dhaqtarad fiicana wax kala taqaana xanuunku hayay sheegaysaa kaysa هذا ما كان سوى في سكجي ويا ما كان يقول ساس عليها هي حاول ساس أقول لا وطي ساس ويا ما كان يتريالي كجي فأنا نروح حسابي يعني أنا حاولت ألقيني وكانوا فوقه ما كان كتب عن كأقول أولان كار لكن هذا سوى وحنا صار كبير تصار بوفي عن كار ما كان كار haddii aniga xanuunka ilaya anugu aan sheegayo layn wareysanayo aan sheegayo aan waxba laygu soo kordhinayn tan daawo qaato maan arigayga dhexdiisa ku cuno saasaaba laga qaataay lacagana inoo yarayna tahay ما يورا قف أسوأ مقارن هذه داوود قامتو كويس الرئيس كلهم ساعة دلالة جالس ما قامت داوود ده خلنا من هون حتى سخلنا ما استعمال حتى هذا جبت سوق جالس واحد في عن حتى كمان قلت معدي إن على الصور بيسوق زي أصلا حام سنة تريد أو بعد تعمل كنت شيء بس لو جالس مو شيء بعرف كدرنا رسمي داوود dhiiga ديك saxarake kaadu iyo laga qaado maydanta tara fiican baa layihi baa joogtay saasaan kuu soo aaday dadaba aniga la wareysanayo laleeyahay waxaa naqdisheen maxaa maba soo gogo-aan walaal dadkoo dhan baa sidaas dhaqtar weligaa maan jebniya markagii magaalo unaaya weligaa magaalo maaqaa dhakhaatiirtooda waa saas meelaha caafimaadka kuu sheegayo dadku tagaanadan waa sidaas qofka bukaanka markuu tago isagaa warbixinta la weydiiyaa qofka wuxuu dhahaa madaxa ay xanuunaya waraarka ay xanuunaya saasaa dhihayaa qofka dhaha kadibna markaas kadib uu dhakhtar wuxuu sameeyaa qofka caleemadiisa suugaa kadib waa soo kala saasaaraa baaritaanka ku habboon shaybaanka camdiga weygalaleeyihiin hiidka ku habboon uu u dira kadib jawaabta ka soo baxda uu dhakhtarka ku qaado saasaa qofka ugu daweeyey saasaan saas weeye seeta walaale walaal iyaga wana gabadhii maalintii dabeyd haye xidiga miya waa xitigo xidiga seen tahay waa fiicana haye maalintii dabeyd si kulula waa kula hadlee iska raalaahooba haye waxba ma fahansanayne sax warkan wadankii tagay baa waxaa layidhi dhan maxaa usoo noqotay dadka dhan saasaa la daweeyaayo waa la fiiriyaayo sax dumarkii baa ilu yidhi dariskaanu ahayn waa la dhaftariyaa dadkoo waxbaadan weydiiyaa wuxuu waa la sheegaa meeshii lagaa hayo si wanaagsan marka waa soo fahmay waxaan rabay in la idhaftariyo waaye hadda waa fahamta soo maaha saa uma qabinba waxaan qabay marka dhakhtarka u timaadinba hadduuba ku arka waa inuu sheegaya waxaa qabtay maya walaali hadda waa fahamtay hadda waa soo fahmay waa si fiican see ugu hayaa marka xanuunkaaga sidee ku bilowda madaxaa laga hayaa madax xanuun baa leedaha madaxa waa xanuunaya haye meeqa beri hadda ma jirin laakiin muddaa laga hayay muddo waxaa xanuunaya muddo ay madaxaa laga haya muddo marka baqandhan qabantaa misoo madax wareer qaabkeen qalla waa yaraataa maran hadhaay haye madaxa laakiin layma sii daayo haye madaxa aad ugu xanuun
Wareeg baa dareemtaa marka madaxa qaabkeeda xanuun iskee ugu haya. madaxa waa lay garaacaa saasuu ii faleejiyaa Haye. way garaac Hal dhinac oo xanuunkaasi. labada dhisoor maayo Haa. labada dhisoor baa liigaaya Waa garaac. Garaac uma badan. haa Waa labada hooste habeenkii maalinta si uu ku xanuuna. hal dhifoo baa liisii daaya laakiin badanaa waa xanuunaa Haye. Maxaa kaloo ka caawinaysa baa xanuunka ma? labada jiliyad baa imahaa Haye. Keliyaha maxaa baa ka dareemaysaa? waa i xanuunaa Haye. dhabarkana waa layga hayaa Haye. Keliyaha yaa kaala baxay waxay maqan yihiin baa kale. ima maqlay way xanuunayaan baabada Miyaa. inagu keliyaha imaqan baa xanuunka ka dhahay Mana qof markay xanuunayaan baa dhahdaa way maqan yihiin. haa Haye. luugyadana waa layga hayaa Gawyaha hoosaan xanuunaya. haa xanuunkan ma dhirta uma adduunya. Inti saasoo. haya dhakhtar bakana igu horeeyo miyigaasaan iska joognaa anagu laga taanaa dadka miyigaa joogaanaa Marka dhastaa waan tagtaa. dhakhtar uma tagno hadda dooradii baan rabaa inaan u sheego anto waa khayr weeye haddii dhakhtar la keeno wixii waa fahmo iyagaan rabaa inaan usii sheego anto Ayagu bacgelin aad bacgelin sameeyay. waxaan la-aantii igu dhacday iyagaan rabaa inaan u sheego aan hoosaha yeelida Waa si fiican weeye. Arrin fiican baa gudbinaysa. Saas weeye. Dadkii waxaan ku weydiiyey xanuunkan sidee u soo kala keli xanuunkaan laba xanuunka baa xanuunka gabiyood ka caawinayste. markii hore madaxa layga qabtay dhow Haye. markii dambena awrkii keliya way soo socdeen isku ayaamaa layga qabtay Sax. Wax cisaba. shilbahan saduuda way xanuunayeen dhowri adigu jabaliyeesana way xanuunayeen Ka waran fadhiga iyo istaagii socodkii miyay ku dhibayaan haddaba jilbaha iyo dhabarka waa ka caawinaysa. ma dhibayaan ilaa markaan kacaya jimuhu i dhibaa Sax. socodka iga dhibaa Maxaa kaloo dareemaysay? wadna garaac bay leedahay Haye. adina waa iibtaa mararka qaar Haye. oka Wax kaloo dhinaca miyaa tahay u qomtaa? may waa iibtaa daliil waa marmar hadda waa ixtiraamay shaybaanka jirin shaybaanka waa kan hagee aadaad qofka shaybaanka la eedaysaa dhiiga saagaa soomaaliya kadib ninka jawaabta heshay baa jawaabta ii keenaysa dad baa ii sheega waxaa layidhi kombyuutar baa la saaraa kombyuutar baa leedo kombyuutarku markaad usoo diyaargaroodid baa lagu saarayaa hadda shaybaankaanaan soo samaynaya hadda dhiigagaas ka qaadaysaa yaan geeya shaybaanka geed haye haye walaa halka waa kusoo noqonaya biya ii soo noqon jawaabtii ila soo haye A few moments later. Midda caafimaadka waa fiican yahay maga haye infection gaar baa jira dhiigga infectionka mareenka infection fiican waa caabuqa jirka ku dhacay midkaan mareenka iyo mid dhiigga intaba waa jiraan haye marka labadaasaa lagaa hela haye intaasaa mama kuwaasaa daawada laga qorayaa daawaa liiga qoriyaa daawa lagu qoriyaa marka daawooyinka baadii baa ku noqonaysaa soo maaha xoolo iyo meesay camalkay hooyihii maadaama ka timaaday sinayaashaada ugu qorayaa xoolaha ma kujimanaysaa saas weeye marka daawadaasaa qaadanaysa haye walaa waxaan kuu qoray laba baniini magan midka saddexaad xabad habeenkii kala qaysan subaxeen haata ko habeen walba iyo subax walba waa la laqaya habeen walba isu wadwalbe waa lala qaya intay ku dhammaanayaan ma fahante waa kaan habeenkiina xabad salaadiina xabad waa la qaysa laakiin waa cuntada kadib waa inaad cunto cunto markaad cunti kadib baad ayad ka qaysaa hal xabad soo maatan saasaad u imaysaa
marka inaad isku khaldin baa la rabaa iskuma egegka oo meelaheediyaasha waa soo qaadanaysaa qayb daawadu taalan jiro farmashiga meel daawadu taalo waa ka soo qaadanaya baa ka soo qaadanaysaa hadda warqadda marka kugu qoro haa bay xagga la eedaysaa ka qaadanaysaa saas weeye insha allah waa fiicnaan doontaa xanuunka ka caafimaadaysaa haa ilaahay haan fadhidee آمين لا نبتغي في ضمانكم إتصال فيه مدام هذا المنتج عفاف في بارتها وأنا أصدق شامي شوقي يسمعون أخشى kulli waa beersanayeen waxaana bay sheeganay كل ما هذا الشيء اللي haa كل قدر مخالفة في هذا إسكال بقى اللي haa ماشي كل شيء إسكال بقى كويس haa ilaa لما هو طيب كانوا ما تعرف kuwana waa baalahan yeelaya ولا أنا أتكلم من كان عند الشيء فرمش لا داود شفاف kabacdina waraaqaha soo sheegayeen maya waraaqahaagi marka dambe hadii waaga baasitaa u baaho soo noqonayso haa waraaqahana ku raacaani oo xanuunadaada bay caladaada laga raacay wayna diga la sumo soo fahantay haye saas weeye marka farmashiga la sii maraysaa qaybta daawada siinaysa daawada ka qaadanaysa daawadaana dhiiga waa la aadaysa haye talaadina xabad هيجي خطتك من ياخذ haye abaa انت راح تقاضى يلا الموضوع باها حكيم دارو haye walaal وين ولا لا معك walaal shaaq haye walaal Thank you.